iyadoo saaka subaxii dawladda hoose magaalada Hargeysa ku waabariisatay burburinta dhismayaal cisbitaal dayrar iyo meherada dukaana gaar ahaan wadada hormarta hoteelka Cali Jirde shacabka goobahaasi laga burburiyay ayaa iyagu si weyn uga gadooday arintaasi iyagoo dareenkooda ku cabray dibadbaxyo ay taayir ku gubayeen goobahaasi cagafta lagu burburiyay intaasi kadib ciidanka bilayska ayaa soo gaaray goobtani iyagoo kala dareeriyay dadkii dibadbaxayay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo horkacayo gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex xisbigaasi Siciid Bustaale ayaa si weyn uga gadooday dhacdadaasi iyagoo shacabka baaq u diray meesha haysatay ee wadankan xortada ku haysatay ayaa guriga taasoo kaga duwan yahay waxmada loogu danaynayo iyo wax bilic magaalo loogu danaynayo mid lama waxaan aad iyo aad uga tacsiideynaa dadka masaakiinta ee lagu tuntay hantidoodii had iyo jeer waxaanu cambaaraynaa had iyo jeer la yiraahdaa waxaanu cambaaraynaa ma waxaanu ka dagaalamayna oo si cad uga soo horjeednaa falka waxashnimada noocaas oo kala ee bulshada aan waxba galabsan kula soo kala hantidooda qoys kaliya ilaahdo annaga 4 milyan Somaliland ugu awood weyn awoodeeda ku boobayna waxa weeye sharaftii qaranka lagu tuntay dadkii masaakiinta ahaa ayaa hantidoodii la burburinaya inta markii hore la qaatay ba maanta la leeyahay wayna burburinayna marka waxaan leenahay shacabka ka kacaan hadiidaan waxan oo wixii laga dagaalamay afweyna waxaan ka xishooday waxay qoyska madaxweynuhu sameynayaan dictatorkii ugu weynaa Soomaaliya ayaa ka xishooday ministilaabka guriga ku xiga ee hoteelka waxa laga leeyahay madaxtooyada guriyihii ku xigay ee deyrka la sinaa salaadii hore waxa galay maayarka dawladda hoose burburisay sababta kaliya loo burburinayo guriyahaas ee wadada iyo halka iyo arrinka iyo mushkiladaas u dhacdayna waxa weeye hoteelkaasi inuu helo baarki inuu helo wado waxa weeye albaabada wadada la furi waayay 26 ka sanadood iyo deyrarka la dumi waayay ee hoteelka madaxtooyada laga leeyay loo duminaya waa cadaalad darro geesta kale xisbiga mucaaradka ee Wiciid oo isna arintaasi ka hadlay ayaa waxay tilmaameen inay ka xisbi ahaan aad uga xumaadeen Maxamed Xasan Khayre Shabbaash afayeenka xisbiga Wiciid oo arintaasi ka hadlaya waxa uu yiri Xuseen Dhiqle cusbitaalkiisa agtiisii oo ay dadku damqadeen mala ogeysiin la'aan la geliyay dadka weerar iyo cagaf la geliyay waxaan leeyahay arinta waxa ka haboonayd dadka maanta oo kale in ogeysiin la siiyo la yiraahdo deelqaafka asaas sameeyeen dib u noqdo furta one day 24 hours 48 hours wuxuu la siiyo digniina maalin labaad marka digniinta qofkii haduu qaadan waayo lagu qaadaba laakiin mid cusbitaal hurdiye mid kale ummad hurdun in weerar lagu qaada culays fara badan bay leedahay khasaaray leedahay ya Abdullah Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.